tirada dadka ku dhintay iska hor imaadyada labada qowmiyadood ee ugu tunka weyn Itoobiya, Oromada iyo Amxaarada bishan ku dhex maray waqooyiga gobolka Amxaarada ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa 200 qof, sida uu aaladda Reuters maanta u sheegay sarkaal ka tirsan dowladda. Wararkii hore ayaa dhimashada ku koobay ilaa 50 qof. Dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aaga gaarka ah ee Oromia Special Zone oo ah deegaan ku yaal gobolka Amxaarada oo ay ku nool yihiin dad u badan Oromo iyo magaalada kale ee Ataye ayaa sheegay in dagaalo lagu hoobtay ay ka dhaceen aagaasi 16 bishan Abriil. sida ay tibaaxayso xogta aan ka helnay dadka barakacyaasha ah, waxaan ku qiyaasaynaa in ilaa 200 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen labada aag, laakiin weli waxaan u baahannahay inaan xaqiijino tirada, ayuu Reuters u sheegay Endala Hayle oo ah sarkaalka horkacaya kooxda baarista ee dowladda.